قطارك بلعت كبحة تجابنا بسم الله هو فير كوين مش ما قوي نصدر مو halkan waa qaybta sare ee biyo-xireenka degmada Balcad. بلعت واحد أحمر وبيجا شبيلة بيس عاشة ليه يا كان biyo-xireenka ugu weyn ee magaalada Balcad. aad iyo aad biyo-xireenka ugu weyn waa degmada Balcad waa kana wuxuu leeyahay biyo-xireenka meel lagu xukumayo biyaha oo laga xiri karo laga furi karo. halkan waa qaybta sare ee biyo-xireenka degmada Balcad. halkan aad u jeedaan waa 13 mishiin oo loogu talagalay biyo-xireenka markay biyaha yaraadaan 13kan waxaa loogu talagalay in biyaha lagu xiro si ay ugu faa'iideystaan bulshada ku dhaqan degmada Balcad. haddii ay biyaha bataan oo biyihii aad u bataan waxaan sameynaa 13kan mishiin waa la furaa si ay biyaha u gudbaan ee aadaan afgooy oo u dhigle. halkan waa qaybta hoose ee biyo-xireenka degmada Balcad. waxaa ku qoran qoraal taariikhi ah waxaa la dhisay oo la daahfuray 22 bishii 10aad 1980 waxaana dhiseen dawladda Kuuriya iyo dawladda Soomaaliya oo iskaashanayaan ayaa dhiseen waxaana ku qoran qoraalkan biyo-xireenka waxaa lagu dhisay iskaashiga saaxiibtinimo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee dadka Kuuriya. بيا واكن كانوا حريه وقت حاليا دب كرة لقى فريا كر ما كان لقى فرق بيا صعنيا واكن وبيجي لنا عن كل واحد إلى أفجوية حاجة سويا كان كلا هادو فريه ملاقة سلو الضوان واكن ملاقة ولي النوري بسم الله ما شاء يا كين بعد كين أكو قليل كين تصم ملاقة كتيرة كوين فير كوين مش ما قوي نصدر مو بس ده واقعنا waxaan joogaa mid ka mid ah beeraha ku yaala magaalada Balcad waxaan joogaa beerta ilma Cusmaan Tuni ku soo dhaw janakay geedisaan ku soo dhaw beerteedii maanta dalxiisayaasha ha ku soo dhawaadaan beerteedii waa ku maasatay namariya beerta soo aragno waa kana beerta Balcad waxaa dhexmara wabiga Shabeelle wabigana waxa weeyaan wabiga ugu dheer Soomaaliya ee dhexmara wabiga waxaa ka faa'iideysta dad badan kumanaan kun oo dad ka faa'iideysta biyaha xagan oo ka yimaada ka bacdina waa ka itiinkii u geeniyay beerta dhan beeraha kale kuwaas yani beer ba xaga ku yaala hadda beero badan ba meesha ku yaala ma sha Allah Balcad caan wuxuu ku tahay sidoo kale beeraha beerta waxaa ka baxa moos bukeni mooskan waxa weeyaa suugada ayaa lagu sameeyaa dadka ogeyn moos suuga lagu sameeyaa ana waligay man arag laakiin insha Allah marun waa tijaabin doonaa biyaan xagan socda ilaa bartan socda sababta maxay tahay biyaha waxa uu talagalay in geedka oo haay mirtu haay isbuuc ka bacdina oo ka xirto biyi ka xiro uu talagalay marka cambaha soo u haayo oo dabaasha u soo ridin oo biyaha u ceshto uu talagalay biyaha hal isbuuc dhan oo ku jirayaan laakiin ka bacdi waa ka xiraa isbuuc kale ka xiraysa isbuuc kale ka xiraa biyina waa dhuqsaa meeqa geed camba xagan waa geedaha way badan yihiin geedo badan waay adiga 20 geed camba waay hadda cambaha soo dejinayna ka هاكا عمبي ما شاء الله ما شاء الله خيراتكي ضلك واكن عمبه قنبه مقعيس مرداف بيس عاشة وليم ياكن كل يوم صفينيا بسم الله بسم الله بيس عادو بضيع قجار واي واكس ساسو بحا واكس قابكاس بحا قجار واي بيرتو كبحا قطارك بلعت كبحة تجابنا بسم الله كبسر عليه واكن وراشيك لو دره واكن انت نو كبحة ما شاء الله waxa walba dalka ka baxa geedkan waa afakaanda marka waxa ugu dhaliyay ina wadankeena ma ka baxdo laakiin wadamaha kale ka baxdaa abuurkeeda xabadii $2 Muqdisho la gadaa hoteelada lagu gadaa marka xabad laftiya soo gatay waa abuurtay marka waa dadkii ina hadda tuso inay afagaanda waxaan yihiin inay arkaan oo soo u baxayso oo waa kana geedkeeda tijaabo ahaan
kabacdi waa ku beersa beerta titiran waa ku beeraya maasha allah de kiilaa adigana $2 la kiilada adigana $2 $2 $2 gadaa ay dadku dibadda ka keenay somo waddanka kanaan insha allah waana ku taageeranaa Waa, insha waay hadda waxaan tijaabinaynaa cuntooyinka ugu caansan ee deegaankan balcad iyo agagaarkeeda maxaa waaye cuntooyinkan geedsahan oo kusoo dhowow degmada balcad walaalkay waxaa kugu casuum waxay tahay cambuulo iyo maxog iyo bun deegaankan dhaqanka deegaanka waaye maxogaan aa ujeedid ama kasaafa afrikaanta kala dhahdaa 80% deegaanka waa laga isticmaalaa dadka degan 80% way isticmaalaan marka waa gacanta lagu cuniyaa miyaa aad iyo aad gacanta ku cunaysaa bataati oo kaleeto oo egyahay bataati macaanka bataati macaan oo kale waaye sidoo kale meeshaan waxaa waaye macaan kanna waxaa waaye bunki waaye ha waxaa loo isticmaalayaa sinaan leeyahay inaad barato waaye ha aan leedahay saasna marka adiga ay qabo haa marka maxay tahay waxaas waxaa waaye dhaqanka deegaanka waaye sidoo kale bunka waa ogtahay markii meel la isku casuumo mase madan la tago waxa ugu horeeya laga bilaabo waa bunkaas iyo maxogaas iyo cambuulada waa deegaankan waxaa ku xiga bariiskii iyo madal walbo la isku casuumayo aroos ha ahaato tacsi ha ahaato waa yar kuleen waa laga bilaabaa haa waxaan san kasaas sanka soo saaraysaa si fiican muuqaalkan sponsor waxaa ka ah Castello Cafe waxaan rabaa maanta hees maya maadaama baydhabo insha allah muuqaalka ku xigta waxaan noqonaysaa baydhabo ma garata so hees maya هسمع ماي. وماي ha هذا ما ضلبنا مثلا adika aan ma kala qaanay kasleedina ugu wanaagsan dadka arkaya diyaar ay ku tur Lawini mabora, ena ogare, ilpe banochi, ihadare. Lawini mabora, ena ogare, ilpe banochi. Haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo. Haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo. Wana lama huraane, hagarley wax ugu qabo. Wana lama huraane, hagarley wax ugu qabo. waa ku mahadsantihiin daawashadiina anaga ilmaaminaa subscribe like comment wana muuqaalka soo socota iyo baydhabo